وعنا ونكسن دا وضيال من هانتي بملو وجوتاني سول بعدنا داون إسحاق بسول بعد برامج كثيرة دا STN أقدمت خير دكتور إيمان مجال المتشور برامج قاعدين صارتا إن نسأل سيسان كأم مريم حسين في الأميرة طلبات كانوا حين باقشة تقنية سكولكم مشتاق international سكول يوري برحنان ضم مشتاق وحين ورئيس اللي لنا يعني وحبة كوي ديني مملها سكول كاسي إبراهيم عبد الرشيد محمد المركور كسروا تفيق STN حركة مكرشو مجعلة يكتر قاعد سكولك مشتاق كتير. بسم الله مركور واندو هاي وأتمنى سنتي مقصودة الناس مثل سكولك وحنا معمولها سكولك هو مشتاق international سكول كزودوال. وما صنت هاي سكول ثاني أم حنانة عروض مشتاق قرني أساسين حلقان إذا كنت رتين على أستان حرون لو حنانة عروض يو سكول دميرة الصومالية يو كبرتان. سؤال سلام كجوابه سكول على أساسه لو بصدق توانكي بشي أغسطس وحيالها إنه وده اللي إن السكول كان عن أساسنا وحاكم به مجرم مال المهد ده اللي كير لحظة سنة المقدسة معناها لا يفرق مركا وحيالها إنه وده اللي وحاكم به مدام إنسان لهين مال الميدي أي قصة بربران أنا قصة برتاني آدابتي أو كله سواء وين نود اللي أنا فرنا تاسع كم ذي وحكى الله ماشي كفايدستي كل عروتي يغير لحظة كير معا وحكى فايدستي عروتي كوين ده توصلنا إلى شن توصلنا يوم نحتاج خلنا markaad aasaasteen xanaanada carruurta ama iskuulka yaa idin garab ku siiyay oo idinku dhiirigeliyay inaad hawshaan sii wadaan maasha allah horta waa iskuulka wax garab inagu siiyay ma lahan dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo ka tashtay inay horumariyaan wadankooda kuna soo kordhiyaan fikrad cusub oo ah in maxay ay tahay xarun xanaana la furo laguna barbaariyo ilmaha da'dooda ka yar tahay 6 sano marka fan meel gooni aan ka heleynay ma jirin marka laga reebo dadka Soomaalida oo isu tagay oo kadibna gartay in loo baahan yahay xarun noocan oo kala ah oo lagu xanaaneeyo maxaa sheegtay in ay xanaanada carruurta mushtaaq in aysan ka faa'iideysan kaliya carruurta da'dooda 10 sano gaarsiisan ilaa 15 sano ay ka faa'iideystaan ma waxaad ku koobantihiin xaruntaani hadda aad ku sugannahay waxaa jira in aad balaarisay xarunta oo xarumo kale aad leeyihiin صح waaye xarumo kale jiro xaruntan kale waxay ku taalaa Tarabiana tan waa Saudi waxay ku taalaa Talax ay ku taalaa midawey atana kadib markaa aragnay in maxay ahayd baahidii jirtay aan ka fagaray weynay oo isbeeskin uu nagu yaraaday waxaan doorbidnay si dadkana aan u fahansiino maxay tahay ahamiyadda ama muhiimadda ay leedahay xanaanada waxaan furnay xarun kale waxaana ka furnay Tarabiana marka waxaa xaruntaas kala hadli jirtay weliba arday xitaa waa ay dhigataa iyadana waa ay shaqaysay marka labadaas xarumood ayaan hadda ku shaqaynayna waatahay waxaa sheegtay in xanaanada carruurta aad furteen 2013 ilaa iyo sanadkan joogo 2017 ma jiraan carruur heerka xanaanada ka gudbay oo aad ku biiriseen kale iskuulka caadiga maadooyinka caadiga lagu barto insa ay gaarayaan tiro ahaan ama cadad ahaan inta xanaanada carruur ah ay ku jirto xitaa وسؤال في عن ما كان أساسي حنانا 16 أغسطس وحنكو أساسي سل حقيقة ما كان كورنا المكير طبعا عروض طبعا أردي كير هنكو بلوني كدي باشي واسي ساعتي واسي ويناتي دفعات يقول رئيسي وحايا قلن جبسي لو يكون أفري توانكي بشيلي تيرادو وحايا لكاريسي صدن أردي marka ilaa hadda sanad walba waxa qalan jibiyo ama ka gudbo qaybta xanaanada una gudbo iskuulka arday
hadda sanadkii ugu dambeeyay waxaa ka gudubtay arday 70 gaaraysa marka sanad walba waxaa kala jibisa oo ka gudbo arday marka dufcadii ugu badnayd ay ka gudubtay qaybta xanaanada ka gudbayso waxay ahayd 2016 waana sanadka hadda u dambeeyay waxaa sheegtay inaad xanaanada carruurta aad ka shaqaysaan qaabkee aad carruurta u xanaanaysaan tusaale kale carruurta ma helaan dugsiga qur-aanka ardayga yacni marka wax la baraayo qur-aanka ayaa aasaas weeye diinta qaab ceynkee ayaad carruurta u xanaanaysaa marka loo eego dhanka waxbarashada waa sax waaye carruurta marka ay inoo imaanayaan waxaa diyaar u ah shaqaalo u shaqaynaya carruurta marka hore wixii waalidka aan kula ballanayna waan u sameynaa oo carruurta tusaale haddii galaaskii ay ku jiraan oo kale in waxaa waaye aan maxay ahayd la cidleynaynin macallinkii uu u taagan yahay diyaar u yahay ardadaas inuu u shaqeeyo shaqala jiro oo ka baxsan macallinka oo haddii tii nadaafadda haddii aan lahayd cuntadii marka canuga jaha markuu halkan uu soo galo subaxii waxa uu ku jirayaa ilaa 10 saac inta halkan uu ku jiro adeegyadu u baahan yahay maalinlaha ah wuxuu u helayaa si toos ah xanaanada carruurta ma jiraan qorshe aad u samaysaan carruurta oo ay ku seexanayaan kale xarunta dhexdeeda ama waxaa jiro siyaasaddiina ma waxaad ka mid tahay in carruurta ay seexdaan xanaanada ama in aad subaxii guryahooda aad ku keentaan qalabtiina aad celisato sax waaye ilmaha horta sida caadiga ilmaha waxay soo galaan subaxii 1 saac gaariyaa jiro gawaariyaa jiro oo ilmaha ka soo qaada guryaha marka la keeno kadib waxa ay galayaan xiisadiya bilaabmaayo ilaa 6 saac markay ku jiraan 4 saac break time markay tahay way soo baxayaan waxa ay leeyihiin breakfast ama breakgood markay cunaan glass iyo ku noqonayaan ciyaar hadeeliin ciyaaray soo baxayaan hadba adiga xiisada markaas ugu qoran timetable jiro ama jadwal oo ku qoran xiisadooyinka qaabka u kala qaadanayaan marka qaab noocaas lagu manage karaya jiifna sidii way jirtaa xaajifana xilliga ay tahay markaan qadayno oo kale waa ansaxana ilaa laga gaarayo 7 saac bar jiifkana ma ahan jiif ay hurdayaan keliya waa ay nasanayaan ilaan cuntaa la cunay horey lagama geli karo galaas cuntadii aad ku degayso 7 saac bar markay tahay oo iyagoo fareesha maskaxdoodii in hadana dib ay u galaan xiisadahoodii waxaad sheegtay in dhalinyaro isku tagtay ee fikirkan keentay in xanaano loo baahan yahay 2018 xilligaasi hadda aad 2017 aad joogtaan xilligaasi garab idin caawiya ama hay-adihii taageeramaysan balse hadda waxaad noqoteen in aad furtaan xarumo kale hadda ma jiraan hay-ado idinla soo doontay inay garab idin siiyaan waa hadda ilaa hadda weli hay-ada noocaasa maanan arag xarunta mid kale ama qayb kale inay furato waxaa gaaray cadadkii loogu talagalay xaruntan waa ay dhamaystirantay marka laguma hen karo intaa ka badan marka xanaanadu unbaa isbixisay xarun kala furatay iyada oo eegaysa ilmahaas ama carruurtaas badan inaan lagu heen karin hal meel waxayna ka doorbitay meel kale ay furto mar kale markii laga hadlaayo xanaanada carruurta oo kale inta badan waxaa aad carruurta u xanaaneeyo dumarka idinku iskuulkiina ma jiraan haween gaara oo tababaray inay carruurta xanaaneeyaan ama waad ka siman tihiin in aad wada xanaaneysaan carruurta ragga hadaba sida caadiga ah macallimiinta loo joogo qaybta xanaanada waa wada dumarkaa lagu xantaaya omleyna marka hadda ka hor macallin oo rag ah oo xanaanada waxa u dhigo ma uusan na soo marin dhammaan macallimiinta noo joogo waa wada dumar marka dumarkan waxaa loogu doortay maahan iyagaa naxariis ku fiican oo ilmihii iyagaa garanaayo dhammaanna waa macallimiinta noo joogta waa macallimiin hooyooyina soo maxay ahayd wax soo dhalay iyagaa ayaana fahmaayo maxay ahayd ilmahaas waxay u baahan yihiin iyo wax ka maqan maxay baahiyaha u gaarka carruurta waxaa fahmaayo maamooyinka markaa sidaa darteed ayaan ugu dooranay in carruurta 6 sano ka yar
ay maxay ahayd iyaga macallimiinta u noqdaan. markaad qaadanaysaan oo kale macallimiinta qaabcinkii ayaa ku qaadataan waxaad ku qaadataa qofkani waa maamo khibrad ayay u leedahay in carruurta ay xanaanayso ama waxaad ku qaadataan in qofkani uu cilmi dheeraada uu leeyahay oo aad qofka ku tixgelisaan waxbarashadiisa. horta waxaan ku qaadanaa qofka macallinka aan qaadanayna qaybta xanaanada kow horta dumar waa inuu yahay qaybta xanaanada waxaa lagu qaadanaya shuruudaha waxaaba kow ka maxay ahayd dumar inay tahay kadib waxaa kaloo oo aan ku qaadanaa qualification ma leedahay oo shuruudihii laga rabay maxay ahayd inay haysato ugu yaraan shahaado dugsi sare ma leedahay khibrad xanaano horey uu soo dhigtay marka waxyaalaha aan ku qaadano maxay ahayd hadba waxaan ka fiirinaa dhinac maatahay markaan ka hadlayno kale xanaanada carruurtan ku gudi jirnaa weli waxaa jirta in maalmaha holiday-ga khamiista iyo jimco oo kale ardayda ma imaadaan iskuulka oo muslimisaan placement oo aad geysaan oo kale goobaha dalxiiska oo muqdisho ku yaala si niyad ahaan iyo jir ahaanba ay usoo noqdaan goob fresh. صح waaye su-aasha soo jirtaan waana muhiim waaye haddii aan kaaga jawaabo ilmaha sida caadiga markaan iskuulkaan joogno anaga waxaan leenahay meel ilmaha ay ku ciyaaraan iyaga loogu talagalay inay ku ciyaaraan oo xilliyada balay ay leeyihiin xiisada waxaa jira oo maxay ciyaar ay leeyihiin carruurta xiisadahaas marka waxay galaan qaybtaas anagaan u diyaarinay waxaa yaala wiilfoogi taraaraxi haddii waxaa waaye baaskiilkii la fuuli lahaa meelo banooni ay ku dheelayaan intaba waa anagaa u diyaarinay waxaa jira markaa qayb noocaas ka baxsan iskuul ahaan iskuulku wuxuu dhigayaa tartan uu qabanayaa wuxuu tartansiinayaa ardadu tartansiinayaa galaasa loo tartamaya dan waxaa soo baxayo galaaskii kusoo baxo tartanka ayaa waxaa loo wadayaa meelaha dalxiisada loo tagay magaalada kamid maatahay aynu ka gudubno xanaanada iyo sheekooyinkeeda markan waxaa sheegtay in Mushtaaq International School uu jiro qayb kale ay tahay waxbarashada ardaydaasi iskuulka ma wuxuu u la mid yahay xanaanada oo waxaad aasaasteen 2013 waa absolutely taas waa isku mid waaye hal mar la wada aasaasay qaybta iskuulka waxaa looga gol lahaa waxay ahayd qayb primary inuu ka fagareeyo qayb xanaan inuu daboolo baahiyaha ka jiro xanaanooyinka iyo qaybaha iskuulada hoose iyo dhexe marka alxamdulillah waxaa noo suurtooday qaybahaas oo dhan inaan ku guulaysano hadda qaybta iskuulka waxaan ka bilownay galaas koowaad marka waad ogsoon tahay iskuul oo bilow ah haddana u baahan in maxay ahayd oo lasoo istaajiyo oo startup u baahan oo lasoo kiciyo marka waxyaalaha geli karo adiga alxamdulillah waa dadaalnay dadaalkeena kadib maanta waxaan joognaa primary level oo ah weliba galaaska u dambeeyay galaas sideedaad ayaan joognaa haddana waxaan rajaynaynaa galaaskaas oo maanta sideedaadka ah inaan sii horumarino weliba aan kusii darno qayb secondary ah isaga uu inoo noqdo dufcaddii ugu horeysay. waxaa sheegtay in ardayda galaaska sideedaad aad gaarsiisaan galaaska sideedaad wixii ka dambeeyana ardayga fasaxdaan oo hadda qorsheynaysaan inaad samaysaan oo balaarisaan iskuulka qayb dugsi sarna aad kusoo dartaan inta galaaska sideedaad iyo ilaa galaaska koowaad ama galaas zero ma jiraan macallimiin oo haween ah oo aad qaadataan si ardayda ay wax u baraan waxaa la sheegaa kaliya in macallimiinta inta badan ay ragga ay yihiin idinku ka maamul ahaan sharciga noocee idinkaga degsan inaad haween macallimiin u qaadataan. sax waaye waa ay isugu jiraan macallimiinta aan qaadanayno dumar iyo rag labadaba waa aan qaadanaa qaybta primarygana waa aan ku darnaa siba qaybta xanaanada waxaan u qaadanaynaa keliya saa hore aan kugu sheegay dumar keliya laakiin qaybta primaryga marka la joogo dumarkana waa aan qaadanaa maxay ahayd macallimiintuna ay ka mid yihiin hadda
hadda xitaa waa ay joogaan macallimiintana qaar waxaa ka mid ah iskuulka hay-adu hoos tagaa qofka jecel inuu imaadana wuxuu jeclaala inuu ogaado kale manhajku uu ka baxo luqadda iskuulka uu wax ku dhigo bulshada fafahinta sax waaye qof walba maxay ahayd markuu meel uu rabo inuu kusoo biiro ama goob waxbarasho wuxuu jecel yahay waxbarashada waxaas meesha ka socdo warbixinteeda inuu ogaado marka qofka rabo inuu anaga noogu soo biiro waan soo dhaweynaynaa xilli walba haddii aan kuu sheego iskuulka dalada uu hoosto ama hay-adda waa hay-adda waxbarashada FBNS waxbarashada Soomaaliyeed FBNS ayuu hoos tagaa manhajka iskuulka uu ku baxaana waa English marka laga reebo tarbiyada carabiga dhammaan maadooyinku waxay ku baxayaan luqadda Englishka marka laga reebo tarbiyada carabiga waxaa kaloo jiro ardada waa qabanaa waliba waxaan qabanaa 2 mar aan qabanaa sanadkii sano dugsiyeedka bilow markuu yahay iyo imtixaanka midterm ama imtixaanka nisfiga markaan galno kadibna aan qabanaa labadaas mar aan qabanaa ardayda wataa in arday la maamulo waa wax aad u adag adigu maamulka gobolka soo biirtay asalkaagana maxaad baratay waa sax waaye ani waxaan bartay BA ama Business Administration maxay ahayd muddada muddada aan ku guda jiray waxay ahayd muddo adiga 3 sano ayaan waxaan ka shaqeynayaa halkaan sanadkii afraad ayaa ii bilowday maxay ahayd intaasna waxay ii ahayd khibrad oo aan ku baranayo maalinba waji cusub iyo problem cusub oo xal loo raadinayo marka maxay ahayd hadda meesha aan joogno iyo xirkii maamulnimada intaba waa maasha Allah aad iyo aad ayaan u kalsoonahay waxaan rabnaa doolidmo marka la fiiriyo dhinaca xanaanada iyo dhinaca iskuulka oo primary markaan ka hadalno waxaan awoodnaa ama waxaan rabnaa doolidmo arday qiimo leh oo maxay ahayd wadankooda wax u tarayo ona maxay ahayd mustaqbal ifayl leh inaan soo saarno ayaan rajaynaynaa insha Allah doolidmo arday warqadiisa dhuntay xal gooni ah laakiin kii warqadiisa aan dhumin oo maxay ahayd warqadiisii isagii macallinkii maxay ahayd khilaaf ka dhex taagan khilaafkaas idan waxaan fiirinaynaa labadooda midkii qaldan warqadii aan fiirinaynaa dib aan raacayna sida xalka markaas ugu muhiimsan ee la dhihi karo waa maxay ahayd xalaa loo heli karaa aan isleenahay ayaan u xalinaynaa xitaa waxaa dhici karto marka qaar haddii aan soo qaato gaariga oo kale ilmaha qaar sida wada ogsoonahay ama aniga xarunteydaba ilmaha waxaa laga keenaa xaafadaha anagaana soo qaadno ilmaha marka waxaa waaye isku mid ma ahan midba xaafid gooniha laga keenaa gawaari fara badana inoo shaqeysa waxaa laga yaabaa canuga subixii lasoo qaadayo gaariga marka guriga uu tago waxaad arkaysaa canug oo waalidkiisi aad ka wada hadasheen inuu maxay ahayd subixii gaariga markuu imaado isagoo diyaarsan u soo qaado oo ardayga diyaar u yahay gaariga markuu tagay guriga waxaad arkaysaa darawalkii guriga markuu tagay gaariga ardaygii oo hurdo laga soo kicinayo oo maxay ahayd la leeyahay waa kana u soo socda marka caqabad waa caqabad marka waxaa waaye waxyaalahaas oo kale maxay ahayd waxaan ku xalinaa maxay ahayd hadba xaaladda sida ay tahay xaaladda markaas ay jirto ayaan ula macaamilna ardayda waxaa sheegtay in laga soo qaado muhiimada kale goobka banaadir wuxuu koobeen 17 degmo carruurta ama
aad xanaaneysaan oo hadda qaybta xanaanada iyo qaybta iskuulka ku jiraan ma 17 degmo gobolka Banaadir ayaa laga keenaa ama degmadan aad degantihiin ee hodan ay ka socdaan waa sax waaye waa carruurtu isku xaafid ma aha sidaan wada la socono xamarna waa iska weyn tahay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ka kooban ilmo waa ka keenaa marka gawaarida noo shaqaysaa badan midba wadada la saaraya marka maxay ahayto dhammaan xaafadaha marka laga reebo ex control wixii xagga ka dhinaca kaxda oo kale eridaas waa weli maanan aadi laakiin Madiino saamka oo soo gejid ilaa warshadaha cala kamiin saana oo la soo wareegsanaya Yaaqshi saana oo la soo wareegsanaya Abdulaziz eridaas dhan waa ilmaha waa ka keenaa marka maxay ahayto gaarigii waxaa la saaraya wado marka gawaarida noo shaqayso maxay ahayto hadba gaariga meeshuu aadayo ayay ku xiran tahay aniga meesha laga soo qaaday waa tahay maamulkiina qorshaha midib ku jira in xaruntaani aad ballaarisaan oo aad gobolada dalka deeqsaan inta karankiina waa rabnaa maxay ahayto marka hore loo furay xanaanada ujeedka loo furaa waxay ahayd in dhammaan baahiyaha ka jiro gobolka Banaadir oo markaan xalino oo xal aan u helno kadib aan u gudubno gobolada Soomaaliya haddii ay noo suurtoodo marka hadda lidmo waan rabnaa maxay ahayd higsigeena uu yahay in xarumo kale aan ka furno maxay ahayd gobolada Soomaaliya tusaale kale markii ardayda aan ka hadlayno dhanka imtixaanaadka marka ardaygu uu kalo kaalin fiican uu dadaal muujiyo kartidiisa uu la soo baxo galaaska ugu dambeeya ee sideedaad oo idinkana idinkugu dambeeya iskuulka haddana qorsheynaysaa in dugsi sare aad ku dartaan maxaa abaalmarin ahaan aad uga dhigtaan ardaygaasi haddii uusan awoodinna inuu waxbarashadiisa hore u sii wado maxaa ka caawisan sax waaye waa ay jirtaa waxaa jiro maxay ahayd okay waxaa jiro midda kaalinta oo kale ardayga kaalin markuu galo waxaa sameynaa ardayga oo kale kaalin markuu galo waxaa sameynaa horey maysan u jirin laakiin sanadkan waxaan bilownay oo maamulka iyo maxay ahayd aan isla garanay howlwadeenada iskuulka in ardaygii kaalin koowaad galo lagu dhiirigeliyo in sanadkaas waxbarasho lacag la'aan la siiyo hadda waa ay jirtaa iskuulka ardayga ugu markska badnaa ama ugu natiijada badnaa waa uu fadhiyaa waa uu joogaa hadda waa class 5 waaye wuxuu ahaa class 4 wuxuu ka gudbay class 4 uu ka gudbay waxa uu galay iskuulka ay wuxuu galay kaalin koowaad ardada dhammaan marka la isku dardaro wadarta guud wuxuu noqday qofka ugu maxay ahayd ugu darajo sareeyo isagii ayaan u dooranay in sanadkan uu lacag la'aan uu ka dhigto hadduu lidma hadda ka bacdin waxaan rajaynaynaa maxay ahayd in aan sii ballaarino weliba hadda sanadkan keliya aan ku egnahay weliba inta iskuulka uu nala joogo waxaan rajaynaynaa hadduu lidmo inaan siino waxbarasho lacag la'aan si ilmaha kalena ay ugu daydaan isagana uu noqdo qof oo waxaa waaye waxbarashadiisii ku dhiiran ku dhaqaaqaayo taas xataa ilmaha waxay u noqonaysaa dhiirigelin marka waxyaalaha aan ku doornay waxaa ka mid ah in ardada xitaa ay isku daydaan haddii maanta arday la yiraahdo maxay ahayd kaalin koowaad uu galay waxbarasho lacag la'aan la siiyey midka kalena wuxuu isku dayayaa isagana midkan kale oo saaxiibkiisa ah siduu u dadaalay inuu u dadaalo marka wax aan ka rabno waxay tahay in ilmahaas ay isku daydaan si ay dhammaan ay u noqdaan dad oo maxay ahayd ku fiican waxbarashadooda iyo aadaabtooda dhinac walba marka loo fiiriyo
daawadayaal inta ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka diiradda STN waxaa idin soo saartay idin socodsiisaan anigoo ah Maryam Xuseen Jibriil Amiira kaamirada waxaan ugu mahadcelinayaa Saadam Xasan Abshir iyo weliba farsamada Maxamed Daabukar inta aynu toddobaadka xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo